dumarka Soomaaliyeed waxay dhabarka u dhigteen dhibaatooyin badan oo uu dalku soo maray. Xilligan hadda la joogana ma ahan kuwa mudnaan loo siiyo fursadaha ka jira dalka. Dhibka kale ee jira ayaa ah in dumarku wali yihiin kuwa aan si buuxda loo aqbalin bulshada dhexdeeda, sidoo kalena dhinac loo riixo marka go'aanada la gaarayo. Siyaasadda, ganacsiga iyo ammaanka ayaa ah meelo ay raggu maamulaan oo haweenku aanan la siinin fursad ay uga mid noqdaan si ay uga ciyaaraan door hogaamineed. Iyadoo intaasi dhan ay jirto ayaa haddana waxaa la helayaa hooyooyin xirfado ay barteen noloshooda ku maareeya iyagoona cidna ka sugin fursad siin. Guinea ayaa ka mid ah kuwaasi. haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed fursadahan ayaan naqaanaa. haddii nagu taakuleeyo in ka badan ayaan qabanayna. Shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay inta badan ma jecla in dumarka ay shaqo siiyaan si kasta oo ay wax u baratay. Waxay arrintani u sababayaan inay gabadha guursanayso, dhalayso isla markaasna ilmo korinayso. Tirada yar ee gabdhaha ka shaqeeya shirkadaha gaarka ah ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin, waxa ayna codsadeen in gabdhaha saagoodaha fursad la mid ah ay helaan. magacayga waa Faadimo Cumar Xaaji, waxaana ka shaqeeyaa shirkadda Kaah. waana ku faraxsanahay inaan shirkadda ka shaqeeyo. shirkaddana wax waji iyo qoraal oo la keenay ma ahan, waa wax aniga qoraalkayga iyo qalinkayga keenay. sidan aan ku shaqeynayna waan ku faraxsanahay. marka waan jeclaan lahaa gabdhaha walaaladay sidan fursadan iyo fursad ka weyn inay ka qaataan shirkadaha gaarka loo leeyahay. anigoo ah magacayga Saytuun Xuseen Maxamed, waxaan si dhihi lahaa in oo la siisiyo gabdhaha jaanis ay ugu shaqeeyaan shirkadaha kale maadaama laba gabdhood kaliya aan ku nahay Kismaayo dhanka shirkadda ka shaqeyso. waxaan codsanahay in gabdhaha loo siyaadiyo oo la siiyo fursad ay ku shaqeystaan iyo sidoo kale microfinance. Caqabadaha hortaagan dumarka Soomaaliyeed ma ahan kaliya kuwa ay dadka sida ragga ay mas'uul ka yihiin, laakiin waxaa sidoo kale mas'uul ka ah iyaga laftirkooda oo aanan isku dayaynin inay hor yimaadaan sida ay xaaladdu tahay. Sanadihii dambe waxaa la arkayay qaar ka mid ah haweenka da'da yar oo u istaagay arrimaha bulshada. Aamina Sharaf oo ah gabadha hindistay ololaha bar ama baro ee magaalada Kismaayo ayaa ka mid ah gabdhahaasi. waxay sidoo kale dhigataa jaamacad. magacaygu waa Aamina Cabdi Cali, waxaa hindisay barnaamijka bar ama baro oo aan furnay muddo sanad ka hor 2017 bishii 7. wixii aan soo marnayba hadda haweenka qayb ka mid ah casharada waa loo yeeriyaa, qayb ka mid ah gacmaha ay caadi way qortaan, in ka midana waxaa loogu qoraa gacanta ay macallimiinta ugu qoraan. haweenka aad bay wax badan u fahmayaan macnaha waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay. walaahi caqabado badan aan la kulmaysaa, qof weyn inaa wax fahansiisaa adag. Shaqooyinka qaar ayaa la sheegaa inaysan dumarku qaban karin sida farsamada guryaha ama injineernimada, laakiin arrintaasi waxaa beenisay injineer Caaisha Caydruus oo ah gabar Soomaaliyeed. waxay Caaisha ku shaqaysataa xirfadda dhismaha guryaha oo ay nashqadayso. أنا دورتي وكهلا إن إنجنير نقود ما حيالي قبله يعني حاجة وحقول ده نقطة رجع يدمر قبلها كفيها. madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Hussein Obama ayaa yiri guusha qaran kasta waxaad ka milicsan kartaa sida ay ula dhaqmaan dumarkooda iyo gabdhahooda.